السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada cashirkan cusub maanta mawduucayna waxa waa loops waxa waa statement oo wax ku celceliyo over a sequence. waa iteration over a sequence. iteration yani waxa ku celcelinaa over a sequence si oo list iyo strings camal sequence data typeska camal oo kusoo celcelinaa. marka horta waxaa ku bilaabeynaa loops for loops qaacida oo basic oo leeyahay waxa waa for I oo waxaa laga soo gaaba item in iyo waxaa sequence double columns enter. waa qaacida oo caadi oo waxa for loops example aniga siiyo tusaale waxaa haysanaya list ama string. tusaale name haysana oo waxaa dhahayo loop. haddii cashir hor fiirsateen waxaa arkaynaa loop waxaa leeyahay name ama string wuxuu yahay sequence data type. itemkan badanaa waxaa lasoo gaabaya I. waxaa leeyahay enter print maxaa print gareynaa I. codekan wuxuu sameeyaa I waxa items oo wax ku jiro magacayna loop markas markuu marayo hal xarf oo soo qaada kabacdi shaashada ama wuxuu print gareynaa consoleka ama terminal. kabacdi waa booda wuxuu wareegaa o kabacdi o kale kabacdi wuxuu dambeeya p. run aan dhaho soo ujeedin p. tusaale kale waxaa isticmaalay array ama si python loo yaqaano list. waxaa haysanaa item 1 2 3 iyo 4. waa listigayna waa kan space oo baahan yahay. waxaa geliyeynaa arrayga run haddii noqdo loopka wuxuu maraa wuxuu bilaabaa I ama waxaa leeyahay 1 oo wax index 0 ah kabacdi waxuu booda 2 kabacdi 3 iyo 4. marka 1 2 3 iyo 4. example kale function aa jiro oo waxaa ladahay range waxa waa si magaca uu sheegaan yani range from start to finish. range qaacida asalka waxaa soo ujeedin start tirada oo u horeysa ama qiimaha u horeysa start waxaa leeyahay column comma stop meel ku dhamaanayo iyo kabacdi comma iyo steps. example waxaa bilaabnay 0 comma waxaa ku istaagayna 10. kana example kana isku fiiriyana kabacdi steps u dareyna
hadlena number soo gaabi run marka 1 2 0 1 2 3 4 5 ilaa 9 tirada ugu dambeeya waxaa excluded waaye. Okay, example waxaa ku isticmaalina stepska waxaa dhahani waxaa boodina hal step yani 0 booda waxaa ku bilaaba 1 2 booda waxaa ku bilaaba 3. Okay, run adan waa qaldi waxaa dhahani 2 waa kane number oo waxaa even number soo booda 0 2 3 oo boodi 4 5 oo boodi 6 todoba boodi kabacdi 8 9 booda 10 maxaa marka 10 excluded waan print karina kaas waa for loop. waxyaala kale oo for loop lagu sameyn karo waa inaan code kale ku dhex darno tusaale waxaa ku dhex dari karnaa waxaa lagu dari karaa for loop kale lagu dari karaa if waa lagu dari karaa marka if waa isku dayna haddii waxaa dhahno if waxaa dhahni I u qaybsamayo and equal to 0 print I aan bixiyana. Okay, codekan wuxuu dhahaa haddii I-gan ama tirada wax u qaybsanayo 2 modulus waaye reminderka haduu qiimaha kusoo baxo okay 0 yani numberkaas waa even yani si sax oo isku qaybsamay marka waxaa dhahno run statementka wuxuu qabanaa tirada oo wax oo even bas markane 0 waxaa yahay 0 qaybsamo equal to 0. Okay, 1 oo boodi 2 waa qaybsama 4 6 iyo 8 waa dhamaantood tiro oo even intaas waa for loop. function badan aa jiro insha Allah example badan aan qaadi doona example kan kale waa while loop kuwaan common waxaa saara comment agdhiga while loop wuxuu ku xiran yahay condition yani tusaale qaacidadiisa hore waa condition iyo semicolon kabacdi wixii codekan u baahan conditionka waxaa dhihi karnaa tusaale n waxay egtahay 0. Okay, intaan hada waxaa ku darnay intaan wuxuu ka yar yahay 10. Okay, 10 uu ka yar yahay waa sax hada waxaa dhihinaa print n qiima n soo saar markii soo saaro kabacdi waxaa sameynaa n plus equal to 1 intaan waxaa ku dareynaya 1 gudubka
kan okay n plus 1 0 gan waxaa u daraa 1 markii uu dhameeyo kor uu noqonaa markaas n-tan waxay noqon 1 waa ka yaryahay 10 marka waxaa noo soo saara 1 kabacdi hal ku daraa kabacdi 2 kor uu noqonaa sidoo kale ku celceliyaa ilaa 10 inuu gaaro kabacdi conditionkaas waxuu noqonaa false koodkaan markaas waa joogsana control waa kan wuxuu bilaabay 0 1 2 3 ilaa 9 10 hadii equal ku haddaan waxa smaller than 10 hadii wax haddaan equal to wuxuu soo saara 10 لأنه equal to 10 smaller than or equal to 10 waa sax okay example kale oo input waxooga adag example kale tusaale waxaa rabnaa odd number tiro oo waxa ku qaybsanayn lama ku qaybsanayn waxaa dhahnay n equal to 0 n oo smaller than or equal to waxaa dhahnay 20 waxaa isticmaalaynaa if n-tan oo ku qaybsanaya 2 oo haddana waxaa ku og 1 علينا print n وعلينا بعدين أحمامي oo waxaa dhahay rabay أحمامينا condition kan يعني base inuu gaaro يعني xad inaan oo jiro si kood ku joogsado haddii oo xad jirin يعني hadii himaamo n plus equal 1 condition kan true loo ahaana markaa maxaa dhacay error aa dhacay oo waxa infinite loop يعني loop oo iska soconayo IDE ga laakiin aan celinay si oo RAM iyo memory oo qaadan laakiin waayaga hore يعني run aa dhahay koodka waa socday run intii memory ama RAM dhamaado waa soconaa leh halaas ma sugeen 8 GPU 8 GPU oo RAM haysan ahay joojiyeyna koodka waxaa u daareynay n small n plus equal 1 waxaa ku dareynaa okay run hadana waa qalday hadana qaladka waxaa waaye if statement ku jira will ku jirana wax mutaysan if bool hadii xasuusteen qaybtaan if block يعني inter markii dhaano qaybtaan dhan waxa waa if block gadaal soo celinaa hadda waxaa ku jirnaa waxaa kusoo noqonay y block qaybtaan haddana waxaa maleeyaa waa saxsan koodka waa kale 2 boodi 3 soo saar 4 boodi 5 oo soo saar yani wuxuu soo saaray odd numbers example kale markaan waxaa isticmaalay for loop tusaale waxaa dhahnay waxaa rabnaa inaan tir gadaal u noqono oo backwards u socno waxaanina ahayd in range isticmaaleen waxaan bilaabinay tirada 20
يعني start iyo dhammaanayna 0 laakiin koodkan shaqeynay maadaama 20 wax dhammaan kara 0 soo saara laakiin steps haddaynay -1 garan 1 2 3 يعني waxa bilaabo 19 20 ilaa 1 يعني backwards ranging variable ahaan waa isticmaali karaa tusaale range soo gaabi waxa lahay range toban waa waxa dhamaanaysa int stop يعني 5 adaha iyo -1 tamam waxa ku bedelaa variable range waxa dhamaanaya laakiin 5 example-ka ugu dambeeya waxaa nested loop يعني loop waa isdhexgal karaa laakiin time code wuxuu tusaale range of 4 يعني 4 bilaabo يعني saan oo soo kaabsan karay 4 oo soo kaabsan karay ama hal tiro automatic waa ku qaadaa inta uu qaadaa waxaadaan star waxa la egtahay empty يعني empty string iyo midaan waxa waaye for loopkan waxa waaye rows 2D arrays qaabka sameeyay rows kan midda kale waxa waaye columns loop kale rowga oo hore oo bilaaba kabacdi waxa uu dhexgalaa columns kan practice ahaan ama si sharci ahaan waxaas markii loop isku dhex jiro waxaa isticmaalaya j in range isna isku tir of 4 star ku sameeyeen star kan plus equal waxa uu darinay heading markuu maro oo heading ku daro print stars okay run okay stars waxa sameeyay rowgan ku hore kabacdi waxa loopkan oo lamaad waxa sameeyay inuu 4 mar wax ku daro heading mid koowaad row koowaad waa dhamaad row 2 bilaabis isna waxa ku dar 4 heading waa sidaas ku celin insha Allah waxaan maleeyaa in cashirkan oo ku faa'iidaysteen like haddii oo cashirka faa'iidaysteen dislike haddii wax jiraan waxa khaldan ama haddii cashirka boobsii iyo leave comment si insha Allah cashirka wax ka bedelo insha Allah haddii wax jiraan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.